Sherkedii Najax construction oo ah shirkadda dhistay Cusbitaalka Guud ee magaalada Ceerigabo ayaa ka warbixisay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray cusbitaalkaasi oo muddo 2 sano ay gacanta ku haysay shirkadaasi. Waxayna shirkadda Najax maanta si rasmi ah Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi ugu wareejisay cusbitaalka magaalada Ceerigabo oo haatan dhameystiran. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Najax ee Gobolka Sanaag Engineer Ismaaciil Maxamed Aadan. shirkadda Najax faraceeda Ceerigabo iyo guud ahaanba Najax construction waxaanu halkan ku wareejinaynaa maanta aan madaxweynaha guddoonsiinaynaa 24 qaybood oo ka kooban yahay Cusbitaalka Ceerigabo ee Cusbitaalka Gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigabo 24 ka qaybood oo kala 8 mashruuc cusub iyo 16 hore u jiray waxa ku jira oo 2 mashruuc oo inagu cusub labadaba ku dheeraada oo water supply systemka biyo-gelinta guud oo la casriyeeyay wax badan laga qabtay iyo solar system loo sameeyay adeega leerka ee cusbitaalka oo habeen iyo maalinba shaqayn karaya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa guud ahaan shirkadda Najax aan ugu ducaynayn Ilaahay ugu daro miisaanka xasanaadka mashruucan qiimaha badan ay soo qaban qaabiyeen hirgeliyeen waxa mashruucan uu soconayay muddo leeg 2 sano ku dhawaad 2 sano ayuu soconayay wuxuu ugu dambeyntii ku dhamaaday si guula waxaan u mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka guud oo si wanaagsan oo la shaqeysay guud ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo mashruucan noo furay oo furitaankiisa qayb ka ahaa bilicdan iyo miisaankan iyo midabkan buluuga gudahana quraarada cadaanka ka ahi waa astaanta Najax ay ku dhisto mashaariic fara badan oo dalka guud ahaantiya. Ismaaciil Maxamed Aadan oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay in shirkadda Najax Construction Company ay haatan gobolka Sanaag ka taabagashay isla markaasna ay gacanta ku hayaan dhismayaal kale oo tiro badan oo laga wado gudaha magaalada Ceerigabo iyo gobolka Sanaagba. shirkadda Najax waxay ka wadaa dhowr mashaariic magaalada Ceerigabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan mashaariic kala duwan bay ka wadaa qayb hoteela guryo xafiisyo shirkadeed wasaarado sida wasaaradda caafimaadka aan hore u dhisnay cusbitaalkan oo mashruuci ugu weynaa aan oran karo waa mashruuca ugu weyn Soomaaliland oo dhan ahaa ayaanu ka dhisnay mashruucan uba ugu weynaa marka mashruuca Soomaaliland ugu weynaa laakiin hoteelo iyo dhismaa meherado ganacsi dhamaantood kuwa waan wada hirgelinay qaarkoodna way socdaan imanka si waafiye bay shirkaddu uga shaqeysaa gobolkan iyo guud ahaan geeska Afrikaba oo dhowr dal oo kala duwan ay imanka ka shaqeysaa shirkaddu aad baan ugu hambalyeeynaa dadkii ka shaqeeyay iyo injineerka guud ee shirkadda Cabdiraxmaan Maxamed Ciise Barkhadle Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceerigabo.